بسم الله الرحمن الرحيم waxaa sharaf ii ah in maanta oo ay bishu tahay 12 Abriil ahna sanad guuradii ka soo wareegtay maalintii la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aan doonayay inaan halkan uga hambalyeeyo ugana bogaadiyo dhammaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed saraakiisha saraakiil xigeenada alifleyda dableyda xaasaskooda iyo caruurtooda iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidanka qalabka sida la socotaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa astaan qaran oo aan marna loo qaybin karin qolo iyo qabiil waxayna u taagan yihiin oo loo tababaray difaaca iyo ilaalinta haybadda qaranka Soomaaliyeed mar walba waxay kale u taagan yihiin inay guulo la taaban karo ay ka gaaraan la dagaalanka nabadiidka waxayna si buuxda ay nabadiidka ugala wareegeen deegaano badan oo ay hore dadka Soomaaliyeed ama shacabka Soomaaliyeed ay ugu dhibaateyn jireen waxaan mar kale aan rabaa inaan u mahadceliyo Allahina khalqay marka labaadna ciidanka geesiyaasha ah ee u nafwaayay ama u huray naftooda difaaca qaranka Soomaaliyeed waxaa kaloo xusid mudan inay guulahaasi ku yimaadeen dadaalo dheeraad ah oo ay dowladdu u gashay dib u dhiska iyo tayeenta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhinac walba ah runtii weli ma joogno meeshii aan rabnay laakiin waxaan idin xaqiijinaynaa in dowladdu ay dejisay qorshe rasmi ah oo ku aadan dib u dhiska ciidanka Soomaaliyeed oo tayo iyo tiraba leh gudana kara waajibaadkiisa qarannimo sir ma aha kaalintii ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku lahaayeen xaqiijinta iyo ilaalinta qarannimada Soomaaliyeed waxay arintaasi ku gaareen geed adeegnimo iyo geesinimo la isla qiray marka lagu xoojiyo tiro iyo tayo waxay hanan karaan nabad buuxda inay ku soo dabaalaan dalkeena in sha Allah waqti aan fogeyn Soomaaliya waxay dib mar kale u yeelan doontaa ciidan ku filan hubinta higsiga qarannimo higsigeena qarannimo waxaa ka mid ah in la helo Soomaaliya oo mid ah Soomaaliya oo nabad ah xorna u ah danaheeda qaran ciidanka xoogga waxa uu ka mid yahay hay'adaha ugu muhiimsan ee mas'uulka ka ah inay xaqiijiyaan sidii lagu gaari lahaa higsigaas qaran waana hubaa inay hore uga soo qayb qaateen gaarista higsigaas qarannimo haddana ay heegan u yihiin inay xaqiijiyaan ujeedooyinkaas qaran ee sumcadda iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed dib loogu soo celinayo sidaas awgeed waxaan rabaa inaan fursaddan uga faa'iideysto inaan mar kale shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dalka iyo dibaddiisaba aan ka codsado inay taageeraan geesiyaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo mar walba u taagan inay naftooda u huraan qarannimada Soomaaliyeed sidii caado ahayd waxaa maanta oo kale la samayn jiray dabaaldeg lagu maamuuso ama lagu xuso ama lagu weyneeyo maalinta aasaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee 12 Abriil laakiin nasiib darro waxaa dabaaldegan naga hakiyay khatarta caafimaad ee adduunka oo dhan saameeyay annagana dowlad ahaan iyo dad ahaanba aanu dagaal aan kula jirno cudurkan loo yaqaano coronavirus cudurkani waa cudur safmareen ah oo aanan cidna u aabayeelin sida aad la wada socotaan dalkeenu wuxuu marayaa marxalad adag waxaan ka soo kabanaynaa qaranjabkii waxaan u soconnaa inaan gaarno himilooyin waaweyn sidaas awgeed waxaa loo baahan yahay inaan dhammaanteen gacmaha isqabsanno 3 sano oo la soo dhaafay waxaan ka shaqaynaynay dib u dhiska qarannimadeennii wiiqantay waxaan soo marnay marxalado badan oo kala duwan waxaan la dagaalanay welina aan la dagaalamaynaa kooxaha argagixisada ah
si aan dalka uga sifeyno. waxaan ka gaarnay guulo waaweyn oo lagu naaloon karo, hase yeeshee wax badan yaa weli noo dhiman. waxaan dadaal xoog leh ugu jirnaa sidii aan u soo celin lahayn sharaftii iyo haybaddii ummadda Soomaaliyeed ay adduunka ku lahayd. waxaan ka shaqeynay inaan xiriir wanaagsan oo is-ixtiraam iyo istixgelin ku dhisan aan la yeelanno waddamada adduunka iyo kuwa gobolkaba. waxaan dib u habeyn ku sameynay dhaqaalihii. waxaan la dagaalanay musuqmaasuqii. kobcinta dhaqaalaha dalku wuxuu ka mid yahay tiirarka ugu muhiimsan ee dhismaha qarannimada. sidaas awgeed waxaa sidaad la socotaan ay dowladdu ahmiyad gaara siisay sidii dib loogu yegleeli lahaa habdhaqan dhaqaale oo na gaarsiin kara himilooyinkeena qaran. annagoo arrintaas ka duulayna waxaan dadaal dheeraad ah ku bixinay sidii deymaha nalooga cafin lahaa iyo sidii aan kor ugu qaadi lahayn dakhliga gudaha. waxaa alla mahadiisa ah inaan ku guulaysanay inaan si hufan aan uga soo baxno dhammaan shuruudihii nalagu xiray oo aan gaarnay yoolkii aan kula heshinay hay-adaha lacagaha adduunka iyo bangiga adduunka iyo bangiga Afrika iyo kuwo kalaba. arrintaasi waxay dhalisay in inta badan deymihii nalagu lahaa nalaga cafiyo. inta hartayna insha Allah waxaan ka shaqeynaynaa sidii nalooga cafin lahaa mustaqbalka soo socda. waxay arrintaasi ku timid kadib markii aan muujinay hufnaan maaliyadeed iyo mid maamul wanaag in caalamku ama adduunku nala qiro shaqada aan hayno oo dowlad wanaagga ah. dhinaca kale dib u habeynta iyo hufnaan dhaqaale oo dheeraad ah oo ay dowladdu dhaqan gelisay waxaa alla mahadiisa in dakhligii gudaha uu kobcay, taasoo noo suurtagelisay ama noo sahashay inaan si joogto ah u bixinno mushaharaadka shaqaalaha kala duwan ee dowladda. dhinaca siyaasadda Soomaaliya waxay ku socotaa hanaanka siyaasadda loo dhan yahay ee dimuqraadiga. sidaad la socotaan waxaan dhowaan saxeexay sharcigii doorashooyinka qaranka ee ay soo gudbiyeen labada gole. sharcigaasi wuxuu u sahlayaa guddiga madax bannaan ee doorashooyinka iyo guddiga wadajirka ee ku-meel gaarka ah ee diyaarinta xeerarka dhammaystirka sharciga doorashooyinka qaranka inay waajibaadkooda qaran u gutaan si madax bannaan. dowladdu waxay ballan qaadaysaa inay ka qaadato doorka wanaagsan ee ay ku leedahay doorashooyinka dalka ka dhici doona hadduu Ilaahay yiraahdo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.